السلام عليكم. سوق ugu weyn geeska Afrika ma filayo inaan qalad galay markaan adeegsanayo jumladaas ama ma ahan ka badbadin waa markaan ka hadlayno suuqa bakaaraha suuq ay wax walba yaalaan waxaan galnay meel wax walba oo aad ku fikraysa daabacayso meesha lagu sameeyay inta badan boorarka magaalada waa Cabdiraxmaan Alxaashi oo ah maamulaha bacda Faasisayn magaca ogaansho ayaa koobkan lagu daabacay waanu imaan doonaa shirkaddan lagu magacaabo Faasisayn waanu soo laaban doonaa madbacadaas ama warshadaas laakiin wax yar subax wanaagsan oo idinkaga imaanayso suuqa bakaaraha gaaraan laamigan caanka ee aanan ka fogeyn masjidka Abu Hurayra sidoo kale loo yaqaano meesha shirkadaha oo runtii caalam kale markaad ka hadlayso ganacsi iyo dukaamo iyo xarumo markaad ka hadlayso caalam kale aad ka hadlayso markaad meeshan joogto waxa la waxaad u baahato haddii ay noqdaan kombiyuutar haddii ay noqdaan moobilada kala duwan wax walba meeshan way yaalaan waxaan soo galay hadda dukaan ama xaruntan ganacsi ka mid ah suuqa bakaara oo aad aragtay in yaalaan غسالadaha ama alaabta dharka lagu dhaqo kala duwan dharka lagu dhaqo runtii طبعا nidaamka hadda Soomaaliya guryaha ka jira waxba kama duwan sida caalamka kale ka jira waagi hore mar aanan fogeyn way yareed macnaha baalahan dharka lagu dhaqo طبعا غسالadahan dharka lagu dhaqo xaafadaha iyo ama ma jirin xitaa qofkii awood inuu soo gato way yareed inuu helo laakiin hadda طبعا waad aragtaan ما شاء الله walaalkay Umar Inshaar soo dhawaan buuqjo ku soo dhaweynayna meeshan waxa la aqoobay electronics waxa keenay alaabo badan sida faranjeerada qasaaladaha iyo qasaalada automatic TV oo smart waxa kale oo keenay ku karo casri alaabto macnaha dalka waxa dareemaysaa isbedel badan inuu jiro oo dhanka alaabto si hormarayo dibadda la sii qaadayno qasaalada sida qasaalada automatic oo markii la soo qaato markii la soo qaatay TV smart waxaan mudiranin muddo ka hormaysa jiranin waxa hadda cusub oo hadda la keeno waa dalkana hadda ku soo badanayo qaas ahaan qoobay electronics si fiican u keentay ma sha Allah ku karo badan oo casri ayagana oo foornadooda leh waxooda foorno banaanka loo ay jiro way dhamaatay eriyadan mantiqadan qaybtan suuqa kamidka waxa lagu magacaabaa jidka shirkadaha waana meesha ay ku yaalaan inta badan shirkadaha waaweyn iyo waliba shirkada dhexe iyo inta badan ganacsiga ugu muhiimsan ee magaalada waxaad ku tilmaami kartaa eriyadan wadnaha dhaqdhaqaaqaya ee magaalada Muqdisho qaybtan eriyadan ganacsiga iyo dhaqdhaqaaqa ka socda runtii waa mid cajiib ah haddii aad qurbaha shaqaale ku tahay ama maalin ka mid ah aad shaqaale ku ahayd markaad aragta ganacsiga dalka ka jiro iyo dhalashada si degdega dad nolol ahaan wanaagsan oo aad isku xishaan runtii waxaadna ogaan fursadaha dalka ka jiro ee aad moogtahay waxaan aadi doonaa suuqa dharka ama bacadlaha laakiin marka hore weli ma isweydiisay boorarka iskuulada jaamacadaha xarumaha ganacsiga ee kala duwan sidee loo daabacaa haddaba isoo raaca si aan indhaheenna ugu soo aragno xaruntan lagu magacaabo بسم الله وعبدالرحمن الحاشي ومملها بعدها فاسسين adeegyada aan madbacada u qabano waxa kamida boorarka kala duwan oo loo sameeyay nashqadii ugu dambeeyay waxyaabaha kala daawacno waxa kamida sida boonooyinka tiimbarayaasha adeegyadu waa badan yihiin fanaanadaha iyo wax kasta oo ku saabsan daawacad day ugu yaraato qolofka coverka mobilka la saaro oo daawacno saxaamanka wax walba waan ku sameeynaa adeegyadan u hayno dadka waxa kamida inaan ugu nashqadeyno qofka soo jooga goobtiisa ganacsi si online dalbaadyada aan qabano waxa kamid ah bismillaah magacayga waa Yaasiin waxa ahay shaqaale ka tirsan madbacada Faasisayn qaybteeda design-ka waxa ahay nashqad walba oo loo baahdo shirkadda oo leh experience aad u badan kana soo shaqeynaya muddo badan ababka aan ku shaqeyno waxa kamid ah Photoshop iyo Illustrator xarunta lagu magacaabo Faasisayn ee ku taalo wadada shirkadaha waa sida loo yaqaan waa meesha inta badan lagu daabaco boorarka kala duwan haddii ay noqdaan boorar aad u waaweyn tusaale waxaan ugu soo qaadanay boorarka waaweyn
waxyaabaha kale ay sameeyaan aroosyada qalinjabinta xafladaha ayna ahayn runtii mid halkan lagu soo koobi karo waxaa laga yaabaa inaad isweydiinayso hadda naqshadan hortanada ka muuqatay tawakal shop ay ku qoran tahay yani sidee loo daabici ama markii la daabacayo qaab noocee ah ayay uga soo bixi makiinada lagu daabacayo waxaan aadaynaa qayb kale si aan u aragno naqshadan hadda hortanada ka muuqato sida u soo baxayso haddaba boorkaas aan soo aragnay sidan ayuu noqday halkan ayuu ka soo baxayaa bismillaah cabdiraxmaan waaye mar kale waxaan joognaa hadda dhinacii oo wax soo saarka productionka mashiinkan iyo mashiiman kale oo ka casrisanahayno waxaan ugu talagalnay dadka in shaqada loogu fududeeyo matalan meeshii qaada jirtay in maalin boorka lasoo doono maanta kale lasoo qaado hadda qofku wuxuu ku qaadanayaa saacaddu arka saacadda ku xigta boorkuu helaya marka mashiiman aad u speed laan keennay oo noocyada ugu baramadaysan qadda ugu maarata quality ka sarreysa qaybtanna waxaa waaye qaybta mashiinka waxaan ku daawacnaa boonooyinka iyo waxyaabaha prescription wax la midka ah waxaan ugu talagalnay in uu daabaco maalintii ilaa iyo 50,000 oo page waxay daabacaan sidoo kale boorarka ku musakhrafsan ama lagu qoray afka carabiga farshaxan aad qurxan xarumaha kala duwan sida macaahidda koobabka ayay daabacaan funaanadaha kala duwan maaska xitaa la xirto wixii aad rabtaa lagugu qori koob ayaa lagu daabacay calaamadda ogaansho naqshadaynta marka hore sidan ayaa loo naqshadeeyey kombiyuutarka ayaa lagu naqshadeeyey kadibna aan aadno meesha uu ka soo baxayo iyo sida loo daabacayo heerkulka makiinada yarta ee lagu daabacay koobka wuxuu gaarayaa 200 digrii markii koobka laga soo bixi lama qaban karo waa in qafaazaad waa in maaskan la xirtaa waa in galoofiskan la xirtaa gacmaha lagu xirto si aanan kuleylkaas loogu gubanin qisada ugu muhiimsan ee dhiirigelinta leh yarkaas lagu magacaabo cabdiraxmaan mas-uulka ka aasaasayna shirkadda sida uu ku bilaabay runtii waa mid cajiib ah qisada ugu muhiimsan ee dhiirigelinta leh cabdiraxmaan ninkan maamulaha ka ah aasaasayna Fastsign waa mid runtii dhiirigelin ku dayashana mudan qodobkan si goon ayuu uga sheegay xitaa ma huba inuu raalli kaliya aan sii faafina laakiin waa mid dhiirigelin ah sida uu sheegay wuxuu haystay hal laptop kaliya ayuu qol yar la fariisan jiray markuu wax daabacayo falaashka ayuu ku qaadan jiray wixii uu naqshadeeyay kadibna wuxuu aadi jiray meelaha lagu daabaco laakiin maanta waxa uu shaqeeyay 20 dhalinyaro xirfad leh yaqaanana hawsha ay sameynayaan waana arrin muujinaya runtii barakada risqiga xalaasha ah iyo kobaca ganacsiga iyo wixii aad waqtigaada gelisa inay weynaanayaan haddaba aan aadno mid ka mid ah ganacsiyada ugu qadiimsan ee suuqa uu caanka ku yahay waa suuqa bakaaraha markiisa horena dabcan caan ku ahaa waana dharka ama bacadlayaasha suuqa bakaaraha iibinta dharka waa wixii ugu horreeyey haddaanan qaldanayn ee uu suuqa ku bilowday ama inta badan uu caanka ku ahaa waayadii hore suuq bakaara marka la yidhaahdo waxaa uu niyadaada ku soo dhici jiray dhar aniga ka cumar ahaan markaan muqdisho imaado ama xitaa waagi hore waxaan ugu jeclaa biyaha cabitaanka noocaan ah gaar ahaan cambaha yaa salaam wax la cabiri kara ma aan marka cabay suuqa bakaaraha xilliyada qaar waxaan u imaadaa keliya cambahaas inaan cabo aniga waxaan jeclahay cambaha haddaad fiirisaan inuu ii dalban yahay waa kan ah cambahaas ii dalban oo aan cabaya arrinka fiirada gaarka mudan aan filaynin ayaa ah in suuqa bakaaraha uuna dhiiqa ahayn iyadoo magaalada roobka una kala istaagaynin maadaama inta badan la shamiiteeyey oo ardiyaadka oo dhulka una ahayn ciid la shamiiteeyey bismillaah soo dhawaada halkan oo suuqa bakaaraha waxaa dharka ragga qeybaha kala duwan noocyadooda
dhalinyarada dadka waaweyn kulli marka waxaa idin kusoo dhaweynaa suuqa bakaaraha ganacsi aad u wanaagsan ka socdo marka nooc dhar nooc arabto oo laga dalba China Turki Malaysia dhinaca arabto marka wixii oo dhalinyarada iyo dadka waaweyn macuus shaati waa funaanad garan surwaal waxa doonto waa laga helaa marka waxa wadankana waxa la dhahay macnaha siyaabooyin kala duwan macnaha cilado badan u jiraan marka hadda anaka problemkana soo badan waxay tahay macnaha xoogay wadankii xoogay wixii iska kacab maahan dhibaato kala ma jirto dharka saayada loo ganacsana suuq waa okay marka waxaan leenahay ku soo dhawaada suuqa bakaaraha waa suuqan waxaan u imaaday aniga shakhsi ahaan inaad dhar ka gadato waxaa yaallo barandaadka ama calaamadaha aan caalami ahaan qaaliga ah laakiin halkan raqiiska ah $10 wixii ugu badan ay $15 ashaarkaas shirkadahan kala duwan sida Polo American Eagle iyo kuwa yogaas laakiin talow ma asalba mise ma ahan waa kuwa la iska sameeyay dharku waa laba qaab wuxuu ku yimaadaa birma iyo sugunto magacana waa lagu kala yaqaanaa taabashadana waa lagu kala yaqaanaa birma ahaan iyo sugunto ahaana lagu kala gadaa marka wadan uu ka yimaado kuma xirna laakiin anagu birma iyo suguntaan u kala naqaanaa saasaana ku kala gadnaa wuuna kala lacag badan yahay bismillaah anagu waxaan nahay ganacsatada dharka jumlada gadda oo dalka Soomaaliya marka waxa weeye ganacsigaas jumlada oo dharkan gadnaa wuxuu ka yimaadaa China iyo Turkiga iyo Dubai wadamadaas oo dhan nooga yimaadaa sidaas loo gadaa tafaariiq leeyahay gadata ayaguna waa sii gadaan tafaariiqaana u sii gadaan muqdishada maanta ma ahan muqdishadii hore maanta waxaa yaala wax walba oo u baahan tahay maadaama Soomaalidu inta badan يعني طبعا أنا جرين أما يريهين عد حكومة وشقيس الدولة وشقيسة أو صباح هذا ضدك حارون حكومة كشقينيسة ضدكو أيجا أنت بدن هيسا شقوين كودا سيداس درتيد قفل بوحوقات وجود ذالا إن أوصيهر مريو جناعسيسا ما لو حد أركيسا رنتي يعني عجيبة أنا كدوانين جناعسي والبو عالم كيالو ويدي هوري ويريد إن أدركت حارون جناعسي أو إيسي أما مكيفيات كان يكجران لكن هذا waxaba sii yaraanay ama yartahay xafiis una AC ama mukayif ku jirin dhowr sano ka hor anigaan ma jirin waa arin runtii muujinaya in muqdisho maanta waxyaabaha qaar markii laga reebo adeega guud markii laga reebo ee la xiriira wadooyinka iyo nadaafadda markii laga soo tago meelaha qaar muqdisho maanta kama duwano caasimadaha caalamka wax la sheego uguma duwano waxaan rajaynaynaa insha Allah inay sidan kasii hormarto qodobkan aan suuqa bakaaraha uga hadalnay intaanu ku egyahay والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.